الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. مرت شرفك kasoo qayb gashay xafladatan aan ku daafurayno online banking international of Somalia. waxaan rabnaa inaad soo dhaweyd waqtigiina qaaliga aan idinkaga mahad celino aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waxaan halkaan rabnaa inaan ka sii dayno warbixin yar oo kooban oo ku saabsan International Bank of Somalia iyo heerarka uu soo maray. bangigan saa la socotiin wuxuu bangiyada uga duwan yahay, waa bangi aan ugu talagalnay international standard ama caalamka investorska caalamka inay bangigan iyagoo dhaxmaraya standard bangi aan u diyaarinay sida u soo dhaxmaraan internationalka. bangigan waxaan ku bilownay inaan qaadano systemka adduunyada isticmaasho bangiyada looga shaqeeyo la yiraahdo Oracle database ICBS aan isticmaalnaa. taasoo noo suurtagelisay inaan cid walba aanu la xiriirno. auditna waxaa noo ah Deloitte oo ah top 5 in the world maanta iyadaaba number 1 caalamka, waa companyga ugu sareeya wax audit gareeya caalamka ayaa anagana audit noo ah. marka taas waxaa ka garan kartaa standardka bangiga oo iyo meesha uu marayo. taas waxay noo suurtagelisay Mastercard inaan helno principal inaan u noqono Soomaaliya, inaan anagu ka noqono mas'uul uga noqono principal annaga siin karna bangiyo kale iyo agencyal kale financial institutions kale annaga oo siin karna. marka taasna waxay noo noqotay waxaan ku gaarnay systematic bankiguna. maanta halkan waxaa kaloo aan achievementigaas aan rabaa inaan ku xuso labadii sano ugu dambeysay best emergency bank in Somalia noqonay oo aan bangiyada tartanka loo sameeyay aan ka noqonay bangiga koowaad ee shaqadaas ku guuleystay inaan noqonay bangiga uu systemka iyo administrative-ka ugu fiican. maanta waxaan rabnaa inaan cilaamino online banking. waxaa laga yaabaa qaarkiin inaan Soomaaliya dadka qaarkood waa isticmaalaan online banking, laakiin anaga waxaan uga duwanahay waxaa ka soo gali international transferna oo ku sameyn kartaa, waa lagu soo transfer karaa. taas waxaan rabnaa macaamiisheena inaysan bangi aysan imaanin ee adeega ayagoo gurigooda jooga ay isticmaalaan, oo gurigaaga adoo joogta u dirsato meesha rabto lacag lagu soo lacag transferto. waxaa ka faa'iideysan doona oo aad uga faa'iideysan NGO-yada waa iyagoo dibadda ku maqan lacagtooda maamuli kara meeshii joogaan ee wadankay joogaan iyagoo lacagtooda maamuli kara ciday rabaan lacag u transfer kara. corporateska oo bill payment systemka inay bangi yimaadaan dambe looma baahna. bill payment system transfer corporate oo international u transfera waxa dhan orderka formka ka soo buuxina bangiga ku jira hore u imaana qof dambe inuu bangi yimaado uma baahna, way ka kaaftoomayaan. personal accounts-ka sidoo kale waa ku isticmaali karaan. dadka gaar ah si gaar uga faa'iideysan doona waa dadka dibadda ku nool oo aan u bixinay NRC account ama madeganayaasha account-ka ay nagu leeyihiin. kuwaas waxaa u suurtagal family-gooda inay lacag u diraan, u soo diraan ayagoo meeshooda jooga. oo maanta haddii isla hadlaan uu yiraahdo family-gu intaan account uga furo isagana lacagta u transfero si easy. waxaa kaloo soo socota 3 project oo cusub oo dhawaan ku dhawaaqi doono oo ah agent banking. waxaan rabnaa waa nidaam cusub oo bangiyada adduunka dhan ku wada cusub. aan rabno qof kasta oo Soomaaliya inuu bangigu gaaro ama degmaha joogo ama tuulaha joogo in agency banking inaan gaarsiinaan rabnaa. adeegaas intaan la gaarin June ayuu dhamaan doonaa haddii la yiraahdo saan ku tala jirno inaan gaarsiino gobolada dalka Soomaaliya. emergency banking way noqon doontaa, dadku way ka faa'iideysan doonaan, ganacsatada waxay uga faa'iideysan doonaan adeeg meesha anaga kaliya aan keenay qof kasta oo jooga gobol ama degmo wuxuu suurtagal u noqon kartaa inuu wakiil uga noqdo adeegaas oo isaguna uu ka faa'iideysto oo dad badan shaqo loogu abuuro oo boqolaal qof ay shaqo ka helaan oo isan noqon wax ku xiran kaliya International Bank of Somalia IBS. Mastercard-ka wasaan hore idinku sheegay muddo nagu qaadatay principal inaan noqotono wax iska easy maaha in principal bank license lagu siiyo ama aad noqoto oo markaas aad bixin karto debit iyo credit iyo prepaid card saddexdaba aad bixin karto oo awood u leedahay. waa alxamdulillah isna waa inta saan idin sheegay within 6 months markuu la gaaro
xafladtan ka weyn aan u samayn doonaa insha Allah oo aan ku soo bandhigi doonaa waxa afareeya kan kale waa mobile payment app oo isna rabno ardayda iyo ganacsatada inay mobile-kooda ka isticmaalaan oo aan bangigaba loo baahan in la soo aado sida bangiyada international-ka u shaqeeyaan waxaan rabaa maadaama muhiimadeena waxa waaye maanta inaan daahfurno online banking oo laga isticmaali karo gudaha iyo dibaddaba ee qofku ka isticmaali karo lacagna ku transferi karo loona soo transferi karo isagoo meeshiisa joogo marka waxaan rabaa as a technical teamku inay ayaa idinka siin doonaa sida uu shaqeeyo laakiin waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad kasoo qaybgalka xafladda kasoo qayb gasheen soo dhawaada awalan mahad alle u sugnaatay oo dhammaanteen nuskeen keena halkan waan u nimid maanta bordhagtiga cusub oo online bankiga IBS soo kordhiyey oo muddo badan customerkeennii ee aad u sugaayeen in badan waxaan ka hadlay CEO-geena faa'iidada uu leeyahay haddii wax aan ku kordhiyo faa'iidada uu leeyahay online bankiga waxaa ka mid ah 24 hours access inaad leedahay access oo ah 24 hours mar walba u baahatid inaad access gareyn kartid account-kaagii aad ka wareejin kartid xisaab aad ku wareejin kartid xisaab kale dunida meel walba aad ka joogtid xafiis ha ahaado guri ha ahaado marka insha Allah waxaan rajaynaynaa customerkeena markay qaataan ayaga ogaan doona faa'iidada uu leeyahay waxaan rabnaa marka sida uu sheegayba CEO-geena technical ahaan inaan ku soo bandhigno qaabku u shaqeynayo online bankiga waa bordhagtiga cusub ee IBS marka waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo halkan qaabku u shaqeyn lahaa online bankiga oo aan soo kordhinay ka IBS ahaan iyo wuxuu kaga duwan yahay online bankiyada Soomaaliya ka jira first of all horta wuxuu leeyahay online bankiga Vasco key oo lagu kontrolsho xisaabta ama account-ka shakhsiga ama company-ga oo u saacida mar walba inuu ku kontrolo xisaabtiisa sida IBS qofka markuu rabo page-ka online-ka inuu soo galo waa URL-ka IBS qaabku soo gali lahaa page-ka hore halkan waxaa ku qoran marka username-ka company-ga ama shakhsiga iyo password-ka token key-gana waa kan mar walba marka waxaa ku kontrolinaysaa xisaabtaada token key-gan waxaan rabaa marka inaan idin tusiyo si live ah user inaan geliyo siduu u shaqeynayo online bankiga marka hore marka sida aan hore u sheegay token key-ga waxaa ka horeeya 4 number oo loo yaqaano pinka waa sida EVC oo kale mar walba aad rabtid marka inaad soo gashid marka hore iyo markaad rabtid inaad lacag ka wareejisid waxaa ka hormaraysaa pinkaaga 4 number oo IBS customer service ee kugu talagaleen markii aad furanayso in lagu siiyo pinka waa sida marka inta badan dadka waxaa fahmi kara ku xiran Facebook-yada Google-ada markaad rabtid in Gmail-kaaga oo password security ku xirto wuxuu ku soo diraa security number marka kana mar walba aad shidid wuxuu generate gareynaa 6 number oo security number aad ku furan kartid halkan marka hadda waa 6 number haduu soo saaray marka waxaan leenahay login halkan waa page-ka marka front page-ka IBS iyo transaction-adii qaabkay u dhici lahaayeen marka menu-ga sare waxa u jeedaa waa home key profile key message key transaction-adii iyo operations oo ku jiro balance inquiry statement marka mid aan u dul istaagno home-ka welcome message-ka wuxuu ku tilmaamayaa user-ka ku jiro ama ha ahaado company ama ha ahaado shakhsi profile-ka marka waxa ku jiro change password iyo address customer-ka ha ahaado individual ha ahaado corporate meeshuu ka bedelan lahaa password-kiisa iyo address-kiisa halkan message-ka macaamilka markuu u baahdo in uu la xiriiro bankiga wuxuu soo dirsan karaa message fariin oo wax walba u baahdo ha ahaato cilad qabsatay ha ahaato wax kale adeeg kale fariin oo soo diro bankiga markaan fiirino fariinta marka waa destination-ka uu dooran karo waa bankiga loo diri lahaa fariinta iyo qaybta kale oo ah message-ka waxa ku jiro markaa samaysid customer-ka ha ahaado company ha ahaado individual wuxuu isticmaalayaa online bankiga transaction-ada markuu sameynayo markuu leeyahay company-ga ama shakhsiga laba account markuu wax isku wareejinayo wuxuu isticmaalayaa account transfer online account transfer markuu rabo inuu u wareejiyo qof kale IBS account ku leh ha ahaado company ha ahaado shakhsi wuxuu isticmaalayaa transfer other customer with a bank markuu rabo TT ama outward dibadda lacag u dirsado wuxuu isticmaalayaa third party halkan beneficiary dadka lacagaha loo diraayo ha ahaado qof local joogo ha ahaado qof dibadda marka waxaa laga soo create gareynayaa ama register gareynayaa qofka loo diri lahaa information-kiisa macluumaadkiisa qaybtan waa qaybtii balance-ga aan ku ogaan lahayn tusaalahaan customer-kan wuxuu leeyahay 3 account balance-yada ku kala jira waa kuwan markaa rabtid marka account walba inaad ogaatid
detailskiisa ama statementka ku dhufanaysaa waxa ku soo baxayo bishii ugu dambeysay waxaa leedahay display bishii ugu dambeysay maanta taariikhda waa 20 December oo ka soo qona 1 month marka waa bedelan kartaa taariikhda aad geen kartaa insha Allah marka waa macluumaad intaas ka dheer waxaan ku soo dari waxaad ka fahmi kartaan ama aad ka heli kartaan about IBS qofka markuu qaato wuxuu degsan karaa manual guide soo isticmaali lahaa iyo u fahmi lahaa productiga soo shaqeynayo wixii faahfaahin dheeraad ahna wuxuu ka heli doonaa markuu soo galaayo forget password waxaan dhihi lahayn forget password iyo sida customerka uu la xiriir lahaa bangigiisa insha Allah marka waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacayga waxa waaye maxamed faarax siyaad bangiga macaamilkiisa waxaan la bilaabay maalintii la furay kow ilaa haddana bangiga calaaqaadaan leenahay maanta ugu dambeysay calaaqaad fiican aan leenahay ama alaabta la diro ama alaabtay noo diraan ama adeegooda waxaa kaleetoodon aada ugu farxay bangiga shaqaalihiisu waa shaqaale Soomaaliyeed heer hebel ma aha shaqaale Soomaaliyeed waaye rag iyo dumarba intaan bankin markii la yiraahdo annaka dambe musharnahay adeegaan u baahannahay waxa aan dirahayno iyo waxaan keensayno bangi noogu adeega oo waraaqaha naga fiirsha oo aan lacagta ku aamini karno bangiyaashii hore dhibaataa jirtay oo nimankan alaabta soo dira way ku dhacayaan gaar ahaan kuwa aniga aan xusto oo aniga dhacayo Itaali jooga marka hadda waxaan qabnaa bangi fiican oo hubihaya lacagta inay meesha gaartay waxaan ugu xiranahay sida la ii soo dhaweeyay iyo adeegayga iyo amaanadeyda waxaygo la gacanta la igu hayo oo bil kasta 30 maalmood iyadoo qoraala meeshaan marayo leela socodsiin anigoo ah magacayga Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed kana tirsan shaqaalaha ARC International waxaan ka mid ahaa customerka bangiga waxaan u maleynayaa dadkii ugu horeeyay 10 qof igama horeynaan u maleynayaa inaan ka mid noqdo customerka bangiga waa bangi aad iyo aad maaragtay aniga shakhsi ahaan aan ugu qanacsanahay maaragtay sida uu shaqeeyo sida customerka loo soo dhaweeyo iyo waxyaabaha badan oo soo kordhinaya casriga cusub ee sida uu la qabsanayo anigoon hadal badan aad maaragtay u qabin meeshan laakiin waxaan idin sheegayaa maadaama uu maanta uu soo kordhiyay online banking iyo waxyaabihii hore uu qabtay bangiga anoo ka mid ah customer ahaana aan maaragtay xayeysiinaynin laakiin waxyaabihii aan ka arkay sida aan intii aan la shaqeynay aan customer ku ahaa waxaan aad iyo aad u maleynayaa inuu yahay number 1 bangiyada ka jira hadda Soomaaliya waxaan rajaynayaa in uu tadawurka hadda uu sameeyay uu laabo si maaragtay dad badan oo anigoo kale ay ugu qancaan xayeysiintu waxay ka mid tahay qayb ka mid maaragtay horumarkay ka mid tahay in loo sameeyo xayeysiin badan maaragtay aad iyo aad aan ugu qanacsanahay waana soo dhaweynayaa online bankigan iyo waxyaabaha kale oo hadda aan maqlayno ay soo wadaan waxaan kaloo aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa sida aan maqlaay xayeysiin aan boorarka hadda inta aan ku arkayay waxyaabaha kaloo hadda soo socda Jazeera Property oo kale anigana qayb baan ka ahay Jazeera Property walow ay wax yar ba iska ahaadaan laakiin waxaan ku boorinayaa dadka maaragtay si maaragtay tadawurkan uu u laba jibaaro bangiga in dadka aad la socda Facebookyada ay Facebook geliyaan dad badan ay la soo xiriiraan waana ku mahadsantihiin maanta waxaan u soo taagannahay inaan launch garayno ama bilaawno online bank for International Bank of Somalia waxaan u taagannahay mar walba saan ku qancin lahayn macaamilkeena iyo dadka bangiga la macaamila waa adeeg kale oo cusub oo ku saabsan sidaan ugu sahli lahayn dadku inay ka maarmaanba in badan inay soo aadaan branchiyada iyo meelahan ee ay ku adeegtaan iyagoo jooga xafiiskooda ama gurigooga ama meeshooda shaqadaba inay lacag transferan karaan inay fiirsan karaan xisaabaadkooda inay qof kale lacag u diri karaan inay dibaddaba u diri karaan shirkadaha kale inay payrollkooda si sahlan ugu samayn karaan oo nidaam xisaabeed kaamila weeye oo u sahlaya in haddii company ka shaqeeyo boqolaal iyo haddii tobanaad ka shaqeeyaanba maxaa la yidhaha click ay mushaarkooda ku bixin karaan waa nidaam aad safe u ah
oo aad looga shaqeeyey in aan haba yaraatee wax isdabamaraysa lagu samayn karin waa sida caalamka horumaray oo aadka hore u maray ay u shaqeeyaan buu u shaqeynayaa dabcan Soomaaliya marti kama ah teknolojiyada qaybteeday ka qaadan kartaa soo bangiga caalamiga ee Soomaaliya maanta wuxuu idin soo bandhigay adeeg dad badan ay isleeyihiin oo Soomaaliya ma gaar adeegaas yes Soomaaliya bahbay ka tahay caalamka online banking kan waa hab casri ah safe ah secure ah wata sawiran oo mar alla markii qofku wax walba uu generate gareeyo passport ugu dambeeya bahalkaas u sameynaya dhowrkiisa kanba mid cusub uu abuuraya kuma xirna telefoon kuma xirna waxba waa un systemkaas u baariixaysa waana system aad safe u ah oo aan haba yaraatee waxba laga qaldi karin marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada IBS maadaama ay la kowsatay teknolojiyada oo ay ka mid tahay shirkadka ugu horeeya maanta teknolojiyada ugu casrisan isticmaalaya nidaamka bankinga ee adduunka ugu dambeeya isticmaalaya waxay idin soo wadaa adeegyo kale idin soo wadaa bariyahan waxaan maleynayaa bahda saxaafadda iyo macaamilkeenuba in badan aan arki doonaa oo waxa soo socda mobile payment systemkii casri ah aad xadiis u ah dambeeya umuro badanna sahlaya mid ganacsatadii u sahlaya say ku heli lahaayeen lacagahooda at the same time na dadka caadiga ahna say adeegooda u samaysan lahaayeen ayagana u sahlaysa marka kaasna waa idin soo socdaa mastercardkii asagoo mar dhow buu ka soo degayaa imaanaya oo hawshiisa gadaalay muddo dheer si fiican uga soo socotay asagoo waliba level aad u sareeya ah mar dhow ATM-yadii baa ku arki doontaan meelaha muhiimka ah oo dhan oo magaalada iyo meel kastoo muhiim ah oo dad ku badan yihiinba sidoo kale supermarketada iyo dukaamada iyo dabakaayooyinkana BOS-keena ku arki doontiin waa jihaas yar oo qofku kaarkiisa marsiisanayo usaan ugu adeegan karo howlo fara badan baa idin soo socda mar kastana diyaar waxaan u nahay haddaan nahay IBS oon u soo tafaxaydanay inaan idiin sahalno howlihiina waxaan u malaynayaa in idinkuna aad noogu qanci doontaan aad baa u mahadsantihiin inta ay maqlaysa inta ay dhegaysanaysa iyo inta haddaba ay hor fadhisaba soo dhawaadaan idin leenahay IBS waa gurigiina maaliyadeed ee ku soo dhawaada If I talk about a little bit about the other developments the bank is coming up with, include mobile banking. As you know, the banking industry is modernizing and changing every day, and this includes the development of mobile banking, which will enable the bank to reach a wider range of clients anywhere in the country. This technology is coming, and it's coming very soon. When this technology is implemented, the bank will be able to reach to expand its banking services to the many unbanked. As we know in Somalia, 90% of the people are unbanked or even higher than that. So we want to tap that market and reach that level. To do that, we need to have a secure online banking system and also a secure mobile banking system. Along with the mobile banking system, there is also there's a mobile app that our clients will be able to use wherever they are. The third service that is in the world is the investment banking branch, the investment services of the bank, which will be enhanced. So today is a milestone for the bank. This milestone will enable us to increase our clientele and also to enable our customers to have a better service and better connectivity to the bank. Inshallah, very soon we will also coming up with those other services, and we'll see you again. Keep in tune. Thank you very much.